بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnaa buugga maadada sayniska fasalka labaad ee dugsiga hoose. Xiisadan ugu dambeysay waxaan kusoo qaadanay cutubka saddexaad ayaan soo dhammaynay oo aan kusoo qaadanay wax loo yaqaano xayawaanada iyo dhirta ayaan kusoo qaadanay. Xiisadan waxaan ku qaadanaynaa duuleed insha Allah cutubka afaraad oo biyaha ayaan ku qaadanaynaa. Inta casharkani aan u gudagelin marka hadafyada casharka laga leeyahay ama casharka aan ka leenahay waxay tahay in ardayga oo meelaha biyaha laga dhaansaday iyo sidii biyaha loo keydiyay iyo ardayga noo sheegi kara la rabaa. Marka qaabka loo dhaansaday iyo qaabka loo keydiyo sharaxaad guud ka bixin kara ardayga laga rabaa. Marka insha Allah waxaa fasalka oo koowaad waxaan kusoo baranay ilaha biyaha laga helo ayaan kusoo baranay isticmaalka biyaha waxyaabaha biyaha loo isticmaalo ayaan kusoo baranay. Fasalka labaadna waxaan ku baran doonaa duuleed insha Allah dhaaminta biyaha, keydinta biyaha, diyaarinta biyo nadiif ah iyo diyaarinta biyo saafi ah. Buuggan wuxuu kormarayaa waxqabadka koowaad waxaan magacaabayaa qaar ka mid ah ilaha biyaha ee aan kusoo bartay fasalka koowaad. Fasalka koowaad waxaa kusoo baratay marka ilaha oo biyaha laga helo ilaha waa kuwa dhulka laga helo iyo kuwa roobka waxaana ugu muhiimsan marka kuwa dhulka sida webiyada, balliyada, harooyinka, waraha, roobka. Marka dhulka iyo roobka ayaa meesha nooga qoran waa cirki waa daruur roobka laga wadaa. Kan labaadna waa balli meel oo biyo fadhiis ama biyo ku haroodaan waaye. Casharkan aan u guda galaynaa casharka koowaad dhaaminta biyaha. Buuggan wuxuu u badan yahay waxqabad ayuu u badan yahay waxqabadkana ka shaqeynaa insha Allah idinkana dib ugu soo shaqeeyo waxyaabo kale oo idinka oo maskaxdiina ku jira qora insha Allah laakiin waa qaabka loogu shaqeynayo idin baraya. Waxa aan sheegayaa siyaabaha kala duwan ee loo dhaamiyo biyaha. Inta aan ku guda jirno marka sayniska badanaa anaa ka shaqeynayo laakiin dugsi sare markii la joogo waa biology iyo chemistry iyo waa casharadii ayaan sharxayaa waxqabadkii iyo layliga ayaa ardayda badanaa kasoo shaqeynaya insha Allah. Halkan waxaa nooga qoran marka booyad oo baabuur saaran biyo dhaaminta habka loo dhaansaday ay ka mid tahay. Kan waxaan ka aragnaa sidoo kale rati oo ashuuma saaran marka iyagana biyaha lagu dhaamiyaa. Qaabka loo dhaansado waxaa waaye dumarka inay iyagana ashuumankii biyo ku shubtaan ay saabaan kadibna dhabarka ay ku qaadaan saas marka biyihii lagu dhaamiyo. Dumarka waa soo dhaamiyaan waa ashuun ay
dhabarka saartaan. Hadda shubankii waa suulay, waxaa la adeegsadaa marka 20 ayaa la adeegsadaa, ay Soomaalida qaarna ay u yaqaanaan jirjaan. Okay, sidoo kale ilaa hadda waa la adeegsadaa gaar dameer, waa la adeegsadaa ilaa hadda, waa biyo dhaaminta ayaa loo adeegsadaa. Marka siyaabaha loo dhaamiyo waxqabadka saddexaad waxaan isku qeybinaynaa saddex kooxood anagoo ka doodayno qaabka ay biyaha ku helaan qoyskeena. Marka waxqabad waaye oo baxthi, yacni waa lasoo baaro, yacni qaabka biyaha ay ku helaan. Marka biyaha sidii aad ku heshin ayaa laga rabaa marka in yacni markaasi haddii aad gaar dameer kusoo dhaansatiin, gaar dameera kusoo dhaansanaa leedahay. Haddii hooyo ay soo dhaamiso, hooyo soo dhaamisaa leedahay, ashuuna noogu keena biyaha. Haddii oor ku keensatiin, oora ku keensanaa leedahay. Marka wixii markaas la adeegsado ayaad sheegaysaa haddii la adeegsado insha Allah. Waxqabadka oo saddexaad. Waxqabadka oo afaraad waxa aan baarayaa magacyada gaadiidka loo adeegsado biyo dhaaminta miyiga. Marka waxaa waaye badanaa waxaa la adeegsadaa dameeraha ayaa la adeegsadaa, gaar dameerka. Booyadaha xilliga jiilaalka ayaa la adeegsadaa badanaa, oo markii meel fog oo yacni biyaha laga keenayo ayaa la adeegsadaa. Oorta iyagana waa la adeegsadaa, xilliga hore ayaa la adeegsan jiray, laakiin hadda waxaa waaye xoogaa yar waa sii suuleysaa, dhaqankaas waa sii suulaya, meesha waa ka baxaya dhaqankaasi. Inaan soo laabta la keenana insha Allah. Casharka oo labaad ayaa u gudagalaynaa keydinta oo biyaha. Ardayga waxaa laga rabaa marka inuu sheegi karo meelaha biyaha lagu keydiyo, ardayga uu sheegi karaa laga rabaa. Waxqabadka ku bilaabadan waa waxqabadka shanaad. Waxa aan magacaabayaa waxyaabaha kala duwan lagu keydiyo biyaha. Marka waxaa saddexdan waxyaabada badanaa lagu keydiyaa, kuwo kalena waa jiraan, baraakado iyo waa jiraan. Marka waxaa fuusta in lagu keydiyo, dhiil in lagu keydiyo, dheri ayuu ekaa laakiin dhiil waaye, haaman. Marka baraakado waa lagu keydiyaa, baraakado fuustooyin dhagax ahna waa lagu keydiyaa. Marka waxaan goobo gelinaynaa oo gurigaada wixii aad ka isticmaashaa laga rabo. Marka walxaha loo adeegsado keydinta biyaha gurigaaga. Okay, wixii markaas aad adeegsatid ayaa goobo gelinaysaa. 1 haan biyood, 2 ashuun, 3 fuusto, 4 walxaha kale. Wixii gurigiin laga isticmaalo ayaa goobo gelinaysaa. Marka badanaa marka xaafadaha xilligan la joogo waxaa laga adeegsadaa fuusto. Haddii marka gurigiina ashuun laga adeegsado, baadiya aad degan tahay, ashuun aad goobo gelinaysaa. Haddii gurigiina haan biyood laga isticmaalo, haanta weyn oo laga isticmaalo, haanta biyoodka ayaa goobo gelinaysaa. Walxaha loo adeegsado nambarta waa su'aal waaya, sharaabo maleyn su'aal waay. Walxaha loo adeegsado keydinta biyaha dugsigayga. Waxaa loo adeegsadaa ayaa goobo gelinaysaa. Marka 1 fuusto ma loo isticmaalo dugsigiina keydinta biyaha. Haan biyood ma loo adeegsadaa, barkad ma loo adeegsadaa iyo walxaha. Dugsiyada badanaa marka haaman ayaa loo adeegsadaa, haaman in dugsiga korkiisa oo la suro, saas marka lagu keydiyo ayaa loo adeegsadaa. Haddii dugsigiina fuusto loo adeegsado, fuusto goobo geli. Haddii barkad loo adeegsado, barkad goobo geli. Haddii waxyaabo kale walxaha kale markii aan dhayn marka dhulka in la qodo oo baca dad ku keysado waa jiraan, ayagana baca in lagu keydiyo biyaha waa jiraan. Okay,
casharka oo saddexaad, diyaarinta biyo nadiif ah. Waxqabadka lixaad, waxa aan sheegayaa siyaabaha kala duwan ee biyuhu ku wasakhoobaan aniga oo fiirinaya sawirada hoose. Marka qashinkii waa dharkii si fiican loo arkayo, qaweyskiina lagu qabeysanayo, dhar iyo qaweys. Calaa kulli xaal, marka waxaa waaye biyaha waxay ku wasakhoobaan in lo'da oo ku saxarooto, lo'da ku kaadiso, in dharkii la dhex geliyo lagu dhaqo, qashin lagu daadiyo, biyo lagu dabaasho la dhex galo, waxyaabahaas dhan way ku wasakhoobaan oo biyaha. Waxqabadka toddobaad, waxa aan kala saarayaa walxaha wasakheeya biyaha iyo kuwa aan wasakhaynin biyaha, aniga oo raacaya sawirada kore. Walxaha intay nagu qoran waa kuwan walxihii wasakheeya biyaha aan wasakhaynin biyaha. Kaadi walxihii aa ka mid tahay biyaha ma wasakheeyaan? Haa, waa wasakheeyaan. Roobka biyaha ma wasakheeyaan? Maya, biyaha ma wasakheeyaan. Dhar dhaqashada, dharka haddii oo biyaha la dhex geliyo oo wartii ama baligii biyaha la dhex geliyo lagu sii dhaqo, way wasakheeyaan. Haa, waa wasakheeyaan. Laakiin haddii biyaha oo la darsado kadibna meel gooni ah dharkii lagu dhaqdo, ma wasakheeyaan. Digada ariga, haa, way wasakheeyaan. Cabidda biyaha, maya, ma wasakheeyaan biyaha. Qubeysiga asagana laba u kala qaadaynaa. Haddii biyaha la dhex galo oo lagu qabeysto, way wasakheeyaan. Laakiin biyaha haddii aad soo darsatid, caag ku soo darsatid, kadib waxaa waaye oo caadi banaanka ugu qabeysatid, ma wasakheeyaan. Laakiin haddii aad dhex gashid biyaha, way wasakheeyaan. Haa, way wasakheeyaan. Laakiin haddii qabeyska oo caag aad ku darsatid, kadibna waxaa waaye oo biyaha aad ku darsatid oo caag kusoo darsatid ku qabeysatid ama weelal kale aad adeegsatid, ma wasakheeyaan. Laakiin haddii aad dhex gashid, warta aad dhex gashid, biyaha way wasakheeyaan. Jeermiska, haa, way wasakheeyaan. Biyaha way wasakheeyaan. Carada biyaha ma wasakheeyaan? Cara ku daadi, ma wasakheeyaan. In warta ay tuuganto mooye. Waxqabadka sideedaad, waxaan barayaa qoyskayga had iyo jeer in ay cabaan biyo nadiif ah. Qoyskeeda biyo nadiif ma cabaan? Haddii biyo nadiif ay cabaan, haa, biyo nadiif ay cabaan dheh. Haddii biyo nadiif ay cabin, waxaa waaye biyo nadiif ma cabaan dheh. Kadibna waxaa waaye qoyskeeda ka wacyigeli marka inay biyo nadiif ah ay cabaan. Ka wacyigeli oo u sheeg inay biyo nadiif ay cabaan, ku wacyigeli. Biyaha lama cabo haddii aysan nadiif ahayn. U sheeg qoyskaaga haddii biyaha nadiif aan ahayn, ha cabina dheh. Waa biyahaas hadhow waa cudurro ay u keeni karaan qoyskaagii. Iyo saafi ahayn, biyo nadiif aysan ahayn ama saafi aysan ahayn, qoyskaada iyona cabin. Waxaa waaye oo u sheeg oo inay dhibaato hadhow u keeni doonto mustaqbalka. Biyaha lama cabo haddii aysan nadiif iyo saafi ahayn. Diyaarinta biyo nadiif ah, qaabka loo diyaariyo biyo nadiif ah. Tijaabo, waxaan biyaha ku nadiifin karnaa habka miiridda. Biyaha waxaa lagu nadiifin karaa habka miiridda. Habkaas miiridda marka waxaa waaye maro oo nadiif ah ayaa loo adeegsan karaa. Qaabkaas ayaa lagu nadiifin karaa.
hab kale aad ku nadiifin karto waxay tahay in waxaa waaye oo shaqshaqo aad adeegsato ama waxaa waaye mirahan oo shabaqa ah. Okay. Caqabadka sagaalaad waxa aan soo qaadanayaa qalabka tijaabada sida miir na soo qaadatid, koob na soo qaadatid, biyo aad soo qaadatid iyo caro. Marka biyihii iyo caradii ayaa isku qasaysa. Dan kadibna waxaa waaye miir ayaa soo qaadanay. Koob kale ayaa laba koob u baahan tahay, koob oo biyihii caradii isku qasan yihiin iyo koob kale oo faaruq ah. Dan kadib mirihii ayaa waxaad gelinaysaa koobka faaruq ah, sidaas ayaana biyihii oo carada ku qasneed mirihii ugu shubaysaa. Dan kadibna waxaa caradii miraha kama gudbayso, marka carada miraha kama gudbayso. Biyihii marka waxaa waaye biyo nadiif ay noqdeen, laakiin biyahaas weli waxaa waaye jeermis ay leeyihiin, waxay u baahan yihiin marka sifeyn ay u baahan yihiin. Okay, koobka maran afka kaga xir miraha saab noo sheegaya buuggeegana kaga xir. Biyihii iyo carada oo isku qasan ku dul shub miraha. Kadibna waxaa waaye biyihii way gudbayaan, carada kama gudbayaan. Biyaha midabkooda ma isbedelay? Marka su'aal waaye haa waa isbedelayaan. Biyihii yacni markii koobka ku jireen oo iyo caradii biyihii isku qasanayeen biyihii oo midabkooda lama dareemayn, laakiin markii la kala miro biyihii midabkooda way isbedelayaan, marka midabkooda caadiga ay kusoo laabanayaan. Okay, carada marka gudubtaa miraha carada marka haddii aynan cara oo boor aan ahayn waxaa waaye carada hoogaa caro oo silki hadda ay tahay kama gudbayso, marka caradii waa miraha ayay ku haraysaa. Biyaha la miiray ma la cabi karaa? Haa waa la cabi karaa, laakiin weli biyaha oo la miiray ma la cabi karaa? Biyaha maya lama cabi karo, sababtoo ah biyahaas weli waxaa waaye jeermis ay leeyihiin. Weli jeermis ay leeyihiin, waxaa waaye in la sifeeyo ay u baahan yihiin. Casharka afraad sifeynta biyaha. Sifeynta biyaha. Caqabadka 10aad waxa aan sheegayaa sida loo sifeeyo biyaha iyadoo oo la isticmaalayo habka karkarinta. Biyaha waxaa loo nadiifin karaa in la karkariyo. Marka aynu biyuhu wasakhaysan miirno waxa ay noqdaan nadiif. Yacni biyihii nadiif waa caro iyo waxyaabaha kale oo yacni loo jeedo hadda waxaa laga arkayo oo ma lahan nadiif waaye, laakiin biyihii saafi ma ahan, waa biyo oo weli jeermis leh waaye. Waxaase ku jira marka ku jiri karaa biyaha jeermis ayaa ku jiri karaa. Jeermisku waxa uu keenaa cudurro ayuu keenayaa. Miradu ma disho jeermisyada. Jeermisku waxaa waaye ilma aragti waaye, miraha waa kasoo gudbi karaa isaga. Waxyaaba ilma aragtada ah waa kasoo gudbi karaa marka miraha waxyaabaha oo il aragtada ah, laakiin ma kasoo gudbi karo miraha. Diyaarinta biyo saafi ah. Okay, waxa aan biyaha ku sifeyn karnaa hab karkarin ah ayaa ku sifeyn karnaa. Waa hab kala jiro isagana waa qalab loo adeegsanayo waa jira. Marka habkaasi marka wadamada casriga ayaa adeegsadaan. Okay, waxqabadka 11aad waxa aan soo qaadanayaa qalabka sida burjiko ayaan soo qaadanaynaa. Biyo aan saafi ahayn waan soo qaadanaynaa. Dab kadib digsi oo sida sawirka kaaga muuqdo halka sawirkan waaye. Gabadhan hadda waxay soo qaadatay digsi kadib waxay soo qaadatay burjiko. Dhuxul lagu shubayaa, dab ayaa lagu sii shidayaa. Kadibna waxaa digsiga la saaraa. Digsi markii la saaro kadib biyihii oo nadiifka ah ayuu
miraha loo adeegsaday ayaa lagu shubayaa. Markii ay karkaraan waa laga dejinayaa, kadibna waxaa waaye biyihii saasaa lagu sifeynayaa. Markii la karkariyo biyihii ay soo walaanteen waa laga dejinaa. Markii la dejiyo waxoogaa yar oo digsiga dhulka uu yaalo, biyihii wasaqdii hoos ay fadhiisanayaan, biyo nadiif kor ay soo marayaan. Kadib waa laga miirayaa biyaha. Marka weel kale oo nadiif ah ayaa ku keensanaysaa biyaha. Biyaha midabkoodii ma isbedelay kadib marka la karkariyay? Way isbedelayaan. Biyo saafi ah ayay noqdeen. Biyaha la karkariyay ma noqon karaan saafi? Biyaha la karkariyay ma noqon karaan saafi nadiif? Way noqon karaan. Karkarinta biyaha waxa ay dilaysaa jeermiska. Karkarinta waxay dishaa marka jeermiska ay dishaa. Biyaha karkarsan iyo kuwa nadiifka ah waxa ay ku wanaagsan yihiin caafimaadka. Waxaan ku dadaalayaa in qoyskaygu cabaan biyo nadiif ah oo saafi ah, kuna kaydiyaan weel nadiif ah. In weelasha biyaha lagu kaydiyo had iyo jeer dabool la saaro si loo ilaaliyo wasakhda iyo jeermiska ku dhici kara. Biyihii waa la karkariyay, kadibna waxaa waaye jeermiska laga dilay, wasaqdiina waxaa waaye hoos ay fadhiisanayaan. Sidaas marka biyo saafi ah lagu isticmaalayaa. Cutubkiina halkan ayuu noogu eg yahay, waa noo dhamaaday. Insha Allah haddii waxyaabo qaladaad waa iska jiri karaan, oo bini'aadan leeyahay. Insha Allah la soo wadaago duulada. Insha Allah dhiirigelintiin mar walba u baahanaa. Insha Allah talada waxaa waaye la soo wadaago. Insha Allah waxyaabo qaladaadka. Insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.